الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم هذين مساجدك جامعة إنه سو كلميي. والله كل جين وحن دونينا ما ركتان إلهينا ندوان. أئمتنا يا علماءنا خيارتا خير كبدن لمساجدك إنه سو دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا بحنا إلهينا ندوان. يعني إلهي ودوانو وأنا آخرتنا أودي أرجرونو وأدويتنا كقالنا diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebel u dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaa, iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegay. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegay, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdillaahi bni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhowla caddaynayaan ee qusquslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low akhartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii
أصحابتي النبي محمد أيوب بهذين مرول بينه النبي قدول جوجو وإلهي حسوسيو ودمشق حسوسيو وآخرة حسوسيو إنكم ما أنت الزمن كان جوجنا زمن الفتن زمن فتنتي مشاكل كأيبتين هي فساد مال والبقويا لنا انتين وقباهي بدلنا هي أصحابتي النبي محمد إن مرول بلين حسوسيو إلهي لو كلن كيسا آخر إن جرت إن لو حسوسيو إنه قبر كادم بي إن لو حسوسيو وأرن لقب مارمان وكل جنا نوض بهنا هذا بدل الله يدين بو نبي قول مع دميها وركي سي شيكديسا قصلك أن نقول أركا يبو نبي قول عليه الصلاة والسلام ما ذا لاشين ما نتقصشين واتكم مشغول الله يدين بو نبي قول عليه الصلاة والسلام واجي بريء يقبل كده عبا مالين كستي وحو بني آدم كوسي دوانيا وقبر قويان قبر قونا مركا وحلا يا وحلا هي أنا قريقي كليقا أيانا هي أنا قريقي درحيقا وصاحبك هابانا هي أنا قريقي مدوبابانا هي waxaad iga shaqaysato un baad soo dhiganayso iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya janaasadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la galiyay ilka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaakin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugan ilaahay u weydiiya حتى سؤال قبرك اللي ويدين يا ابو النبي عليه الصلاه والسلام وسؤال قبرك ومحي وصدح ذا سؤال ودويان من ربك من نبيك ما دينك مر لي مركا قفك انكو عندنا قبرك ان كايمنو كودن بيا كسو دقاقه يا شنقدي سلام مقاشين ابو النبي عليه الصلاه والسلام لو ملك باو ايمان دونتا الفتانان دنا way fadhiisanayaan qofka saddex daa su'aalood oo qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaan wali yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyada adduunyada ku nool oo dhan saddex daa su'aalood waa la sugi doonaa man rabbuka ayaku rabbaynayay ayaku quudinayay ayaku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay ما دينك دين تادو محايا دقن كاغو محوها محاد دقن كدغتود كو دقميسي من نبيك نيغلاي نيغا سو دخ سارينا محادو تقاني marka qofka muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladheena aamanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexda su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna hay nagu sugo allah hay nagu sugo allahna inoo dhibireeyo saddexda su'aalood baa qof kasta la weydiin doona marka muuminka adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay ma arkin laakiin rumee مخلوقا كون موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما أركا دونك انت اللي جو جركا دركيسا لكن روح لما أركو الدوية دركيسا لكن آخرة لما أركو انت دونك اللي جو منافع العقد دركيسا لكن منفعة الصلاة دي منفعة الثواب كما أركيسد وغيب آخرة طالب وقوتو سندونا شيء كما أنت مشاهدات كإنه موغدا أي هدوت ولا نقون دونا مغيبات وحكاكر صويب نقون دونا شيء غيب كما أنت كاقرصون وحاول نقول دونا وحرت هذه ما ضد أركتو أيون نقول دونا ما أنت أدوية إنه موقت آخر إنه موقته لكن قفكم مركو أدوية كي انتقالوا دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورن دونا داهي حجاب أيا كاسرنا نلوشن لكن ما أنت داهي حجابك كاسرنا وان كاقادني أرقاك وحديد بقفك اللي أورن دونا وأدوية دي بان نقول دونتا مش غيب نقول دونتا عيال كيسي دوبر كيسي داري كيسي أدوية كيسي يا لعكتيسي ولا قرين دونا وحمركا واركي دونا عمل كي أدوية وصوق بتي هدو الشر أهانا وحواركي دونا عقوبة ديسي عردي سي هدو عقوبة دي إلهي عردي بواركيا هدو خير أهانا ثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بواركيا أدوية دي وحي نقول إسا وحكا قرصومي آخرة دي نحكم وقتين نقول دونتا مركز marka ilaahay tabaaraka wa ta'ala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkaya wa min aayaatihi al-layl wan-nahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
noloshiya geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega aad arkaysaa dhegta maqalkeega aad arkaysaa lugta socodkeega aad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may sead u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulqayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu iman rabbaynay allah baa i rabbaynayey dukaanku iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanayn mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan lataraadkii baan ku noolahay lataraadkii macaashkii may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإنه قفكو قرتا دودا هذا استعمال يسو شفاء الله ما سعطو شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب وياه لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وإن أدقرتا ربك هو الله وياه معبودك هو إلهي وياه كعبادة متيستوى إلهي وياه كبريده متيستوى إلهي وياه كرجاها متيستوى إلهي وياه كعبسده متيستوى إلهي وياه كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بعد هذا كليجي وشهو ربي جاي الله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقم وحكي لما أمسني دين بانو نولهاي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمام برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعد ما يسترتيب النبي عليه الصلاة والسلام وأين النقطة قف لله أنه تاريخ الصحابة قلت على سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة المسلمين دون حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال هذا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبوا لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب وننكي كورف ديبو قنوفو جيغا لغا تفاي مرقاسو علي قنوفا لغو تفاي وجيغا لغا تفاي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو تفاي علي وصريا
وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimada ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu yiri lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraato tiraahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam baa la hor keenay oo la oran doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nabigeygii Muhammad alayhi salaatu wasalaam saddexdaa su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doonaa an sadaqa abdi adoonkaygii run buu sheegay afrishuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ka daawaday baa la odhanayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysanee moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegay yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doonaa iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul mawt wa ahlul jannati la yanaamun ba nabigu alayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasbi xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan sidaalka lagaaga bihiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا بإلهي إسرافيل بسورة أفوفايا ده نقول كي كصبح دونا ده حق إلهي والله سؤرين دونا مركز قف مؤمن إيمانك لها وحولي حي وما حي بلا يا هرددي نجسوكعي وان جفني وان هردني هردد محن نجسوكعي بلا markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu waja'alna al-layla wan-nahaara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلهي آية الليل آية النهار نرشد الدنيا أن كنا الله ومالين يا هبين مالين تينا وفوفيسا هبين كينا ونسانيسا وتسيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله حيري. نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشيغو يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرة جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا وحا لوغا ديغيا قد كنار تكميدا لوغا ديغيا لأن أوهردا وتضباطا في سنة الدنيا وصود علي أي للي هلكا هكود دالو هكود نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوجدنا وحي الدنيا بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجرا إن ويهردا وين سنيسا ووحا قبري دباتك وكلا كوهيستا ورمها يعني ويهردا مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله أهل كي النقضة الله ينقدق قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي يقول إنا نجيلون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إله وحن كم هدنا نحد انت مرقتي أنك النقاقاذي ربي قي واكيدا فتان كبنا شكورك هاويا أفعاش وناكسني أبدون كل ما در لك كنقضي ويا لأنه يصبح يوم القيامة ما أنت سرجوجا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين ما مغليسد هبين كدودون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنوا صندو ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتم كنوا صنو على الجوغي توبان كنوا صنو حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتم كنوا صنو يا سيد الله تاقنا دونا توبان كنوا صنو حسابتا كل مان دون لأن عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبالني بودي وان نبت قلي بودي مرقا النبي يقول صنعو سيبو كن نبت قشيبو كيري بليشك وعلي وكريم إلهي وكريم حطو دون اسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك بدا مجرو حتى جرى نبو رسول كل هي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عيد وكلاف علينا يسمى جرته لغة عربية الله واضح الله يا حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كيشا تمر جيحيد وصدق الله بحسان كل نقطنا تمر جيح
ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جاه تمر إني قالن هلين أبو نبي قولي هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم والخير كأبو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كونوا مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلا آنا أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتالا واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس مال ازدح سعونيا هاوال ازدح سعونيا قفك كلمونا ايغين مركز ابو نبي يا عائشة قفك عكس عودة مالنتاس من نمبا ما قبر با ما نقبا ما با ايغي يبو رسول قد همي ما جربودي هورتي سواحة على النار دي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وهو أن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صد الصنبا لدي نكاس دولك مويان عرك ميغي مركاسا لغوري مروق تن بدن وما حيبا لغوري ما دادكن وحي اوغان با ادغو اوغاتay ba laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan ni sheegaya al mawtu fi unuqi geeridii ba qorta ii suran والقبر بيتي هل كان لا يدغينا وقبر ويان والقيامة موقفي ماشى اللي جوجنينا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورغب يقول عنه انت سو مرحلة نيكا اي سوغيسو isagu haduu qosle ha qosle buu yiri anu tayda ka waramaya buu inta noolahay oo in baan nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaaga la dhaadhacaysa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي ka warramay عليه الصلاة والسلام ayay tiri ya رسول الله maalinka sara jooga ayaa u adkeysan karaya bay ku tiri man yaqwa ayaa karaya bay ku tiri konton kun sanado markaa buu nabigu yiri Aisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda Ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan ilaa baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri inta tukana salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyada intuu joogo ka sahay qaatay ee Ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiradu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aanu socda ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaala aakhiradeeda ikabayaba oo aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsadaa inta goorta muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda Ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaamo looga dhigaya dadkii Ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yak aakhiradu qofka haday horta la maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxa doonta ku hadli kari maysid waxa doonta eegi kari maysid waxa doonta cuni kari maysid sida doonta u noolaan kari maysid waayo
dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradana xaggaygu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaa malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foolintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innagana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدى كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هذي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن هذا كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا دقيس قلبك سامين يا وحنا دقيسين قلبك سامين يا وحنا تكوهل قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك بهذا كقصعته إلى فرطاس أفرطاس صابات القلب بعلماء هذا وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبية لما الشيء بعلماء هذا لما الشيء بقلبك دحل قلبك قبية قرآن آخر سكي سوى الله بديو يا آخر ذو إنت بدل لا شك شك الله عز وجل شكي labada maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin ya quraanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu miskiinka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay miskiinka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay ayaga suuqa مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن ابي طالب سوق المسلمين اسواق المسلمين تو واسد مساجد او كلا ويان سدا مساجد الهي لوغو وينينايو ايا زمنكي نبيغا سوقنا الهي لوغو وينينايي سدا مسجدك دحديسا الهي لوغو عاصيين ايا سوقوغينا الهي لوغو دحاسيين إنكنا زمن كنا مانتا شيكدي دبادة تالي أيا لقى يابا إلا كان مسجد كبدوهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوء علي يبو كي هذا أركتان بو النبي يقول إنن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا وعاتر هذا إلهي كوما سوء علي هذا أركتانا nin masjidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaa tirahdaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada inama buniyat almasajidu lima buniyat laha masaajida wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi
nolosha masaajida taalabay culimadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saare nolosha dibadda taala masjidka in la keeno maaha ahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taala cumar bin khadaab suuqa madiina intuu galaba oran jiray halkan inna fariisiya ilaahay saacadaha rumeynay kaalaya cabdullaahi bin cumar intuu yimaado tufayl buu ku oran jiray inna mar iraac buu oran jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo soo baxayeen haddana maalin kale uu yidhi inna mar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi bin cumar in cumar bin khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bna cumar suuqa waad nagaysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheegay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaamno baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته بارك الله هنا والدعوة دعاء بارك الله هنا مسلمين تنو دعينا يقولوا إنه دعينا بقول قفانو دعينا بقول كاسوي إنه جوابا والدعاء لقى يا بقول كأولياء إلهي أنت كل جرتو إن إلهي دعاء ضنا أقبل صلاة المسلمين التي هو معي صلاتين السلام عليكم نبت قليدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركات إلهي korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaas la soo kala haynaa boqol qof baa salaamayna 200 qof baa salaanta ummadda salaamayna way noo jawaabayaan waxay garanayaan saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhaxmareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaayoo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargaya cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بكي ملها قفك هذا أول مركز لا صعته أيال هر صعته بكي هذا هر مرتاع مركز سوري مي هذا مركز دعاء سنة يسد ملقا يا باين لما هذا والد الله يدمر أنا دو ويدين مركز سوري ها مركز برتا أرزاقة كاحد واتاس لما هذا والد دعاء كوب دربور أرزاقة وكفر مية ما لها إنكم يقول حمكة يا جنا يا مي صلاة تدك أي سلام يا بالرزق كده حركيين والدك دعاء سوى دعائين بالرزق كده حركيين استغفرت أي بدنا يا بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكنا يا بالرزق كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس صلاة جماعة إلا تكنا مسجد زحمة يعيدك كده عادي دينتن إلهي نوما سينين كليا إن آخر ما فعلت نوقا بلا بنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يأخران كدرنا كل با marka noloshana adduunyada intaan haysano waa fursad yaan nضيعنا adduunyada diinha ka qaadano diintana asaaskeedu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato والله هذا آخرته إن لو ويناته دخن كنا توصي ورزقنا حلال نقن ومجتمع ودم بس بدلي وايو لأن مجتمع واحد نقول مجتمع آخر كل حساب تبعي
سيدي لبادين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دول كايبيي دولكي markuu gatay waa dul beereed buu ahaa uu falay marka khasna dahab marka uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaa uu keenuu ka yiri war dhulkaad iga iibisay dahabka inta lag baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yiri markaas may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iska qaada buu ka yiri وروحان أديك على إيجاقاض إنك الزمن كأنه معي وروحان أنيق على السي وين تروح أقول لك الله من دول كان أنيق على جوري كان أنيق علىها مهرة أنيق علىها وحان أنيق علىها بس كويس أنا يكو واحد تاجنا يندتكم مركي حاجين وروحان أديك على إيجاهو يكان قادن مايو ما دعي كرتو ماي هذا إسكال هذا إلهي كوسية إسكاقاضو may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iskale iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta inta laga anu kuma siine may labadiin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kan wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa ضاد الزمن كان لقى يا بيني ورن لها حولها دولة على إسكا كنا إذا غرب إسكا في عنوي جيران لكن كود وعسكر جرا دولة دوش خير وقتها حولها دولة إسكا كنا الله كبح ينوكنا مورن وحويري أبو محل لها أبد ويل أبو كنا كبر لبدا إسكو غوريا لبدا حولها صيب الفلوس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هو عجيب هل كان هذا حماة لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام صدق ولا السعودين أي مادين من بنانك وذهب كيالو دايما مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية من الموضوع مرتبو كي مركز ده أنا كقاعدة هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي بسان واديك هذين وقاعدة ديني أدوية اسمه راعي بوكي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بل النبي أي انظر ذلك مركز الذهب كي قاتل وإلا السعودة وإلا اللقيين مقالة مركز ودوانين بين هذين حتى المالين قال ولا نقدعي هبين هم بيقنوا لكن وقع جورينا ويتشدد وعيد هذا الله الذهب قاسي إلى للسوق من مقالة انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام ورياض النبي محمد إليه جرك بني هذا وصلت باكو جرتا هذا هجاك جركو دم بهجاجي هذا يباراتنا جركو دم بابانان وحمان تاسنا وقلبك أبو رسولك يدي قلبك أنا وح كلمة هجاجيا قلبك لا عجمة هجاجسو قلبك وح كلية هجاجيا وأمرك يجك إلهي معرفة ديس معرفة الله عثمان بن عفان الله رضي كان نقضي الضميه سي أدون كميدو ويا مالين وعور العقد انقاض أبو ذر الغفاري وقي
hadduu lacagtaa Abu Dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Darna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribdab meel la yidhaa oo Cuthmaan bin Affaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad moodaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dar al-Ghifaari radiyallahu anhu marka ninkii addoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaama hinde من يبغى العقد ذي هاس كجعلها أو يمدي أو سلامي وعند أمير كي مؤمنين تاع عثمان بن سلام كاجا سدا وان كقاضي بل ورن نسجا كورن دار الخلافة كورن مسجد النبي كورن مسلمين تحلقوا كورن مركوا كورن مي أيوري العقد أنا ويسو ديبا وحيوري أبو در أوجي العقداس مركز المحان كدقا عري ده هو كلمة أدويديس markaasuu yidhi ku celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtee ciddaasii ka dhabuu yidhi innaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideyda ilaahay baa ii daboolaya حاجاتك إلهي بيقوم منايا وحنو باهنا إلهي بيهي عدك الوحي ما هيسو لعقو ما باهني ما كدار عسنة ديكا لكن إلهي أمر قسانو باهنا دعاء هيستا صلاة بان هيستا استغفار بان هيستا قرآن بان هيستا أعمال بان هيستا قلبي قنوح وكو حصلي والدين وين أدوية ما مركاسو نكي يا ور اسكتادو مي أعلي مركو أركينو نكا العقونا نوجدون وقادنين أي رنت وشيء وحو كيري أمريكا وحو يقولي هدو أبو در العقدة كاقاتو حربة تهيب يقولي أروال على الضون لماذا هكبحي الحرية والعقدة نيقى قادة أبو كيري مركز الكهان قادة مايو أحد دون تأخر مركز الوريقى قادة وإن حريص معاكو قلنا حريصتا هذا العقدة نيقى قادة طوال حروي أبو كيري وحو كيري أبو در نيقى سؤال أبو كيري إيك haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buudi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu ihi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifaari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyada maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baa ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada iyana kaala weynaan Usmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee nin baa nabigu yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u tagay buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affaan wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday
may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yidhi iska kacay ismaan baa ninka u yeedhay war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayo maxaad u socoto dee nebiga iga soo diray buu yidhi sal alay sl oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxa uu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء كانوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ولهذا السوق يقع نوح كوي بين كرامة جرب عمر أورنجري إلا أن مسجد النبي يتو تجي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمويان إنك أنا ما تعيد والبقى نعسب بالوضوء تشاينية تايلاند بلغوا الضولي هبري بس سعودة كلها تشاين هاو سعودة حاجة سعودة والمؤمن وحال دون هنا نقطة مؤمن لابد أن نودك كوتا على إلا أدوير هذا كو إيجو إلا آخر هذا كو إيجو آخر هذا إيه أدوير كو سجن أدوير وإير وحن جوجنا إير ولا ليال إنت هير إن جوجنو إلهي هكذا بقنا ودين هكذا قالنا ودين تنا هم برنا ودين تنا هكذا شقينا وزمن هذاك بالجرا زمن كيل الجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي غوري والزمن النبي محمد سي شيغي كون يفر بقول سنه كهر نيك دين تمارين تيرا وان حجسن وحاو كدغنان دونا نين دمع لو ديبي رسولك يري بلشده كنا نوشا مانتا اك ومجتمع خير كوغو يرادي شركو بتي ماشا ضبخدا بيشادو waxay ku dhacaysa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cariisiya waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyay ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaalo ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahadiisu ummadda wax ku taray ismaa bnu cafaan cumar buu nebigu u diray maka markii sulx alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu aniga may buu cusmaan baa ku munaasiba buu yidhi عثمان باكو مناسبة عثمان بن نبي قدر الدل ورنتي عثمان هذول تك خالد بن وليد جيس النمدي الرجال نمدوا لها ومدوا وحكو تري ما أنتوا صو إسلامي بن نبي سيفت أوكيني سيفت نيجا قبض بودي لا يد بدا في ويدي معك هذا قال سيفت إيش أنت أصلا مسلمين كلها يبوكي كقاعد معي أنت المسلمين كلها يسي إن كبرا إن العدو إلهي كله ساك هاجر رجيله قال بودي سيفت إلهي دين تسوي جهاد والله رجل نمدي بحكك الله بدل بس كي عالم كها علمه مدى كو أنفعي كي دقال لها دقاليه سو مدى كو أنفعي زمن كي نبي عليه الصلاة والسلام وحو نبي قد دياري أمت نوال بسلاحية كجرتا لا استعمال يدين تدالك مركا إنكونا كل جين إن شاء الله تعالى خير باين نقام مغضى خير جعيل باين نقام مغضى ده إن شاء الله دالك دينتا دينا عكستبا دالك دينتو عليه والله ونردان إني شاقي معلنك قرآن كدقاء يددالك الدين تغيب تسيبك هيا
sheekha masaajidka darsiga ummad marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan kara wa'tasimuu bixablillahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimadda wanaagsan buu nebigu waa sadaqad kalimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannadu galee buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaanuu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marina ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay markiisa anu marti kumahiya waan deganahay ya deganahay ما شاء الله عيالك reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل